madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa garoonka caalamiga ah ee aadan cadde ku soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Mudane Abiy Ahmed Cali oo isaga iyo wafdi uu hogaaminayo ay maantay booqasho rasmi ah ku soo gaareen caasimadda dalka Soomaaliya ee Muqdisho. Hamaamuus maqaamkiisu sareeyo ayaa lagu qaabilay wafdiga ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya oo lagu sharfay rigada sharafta leh iyadoona intaa kadib lagu soo galbiyay wadooyinka halbowlaha u ah caasimadda dalka Soomaaliya ee Muqdisho. madaxweynaha jamhuuriyadda Dr. Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya ayaa intaa kadib kulan gaar ah ku yeeshay qasriga madaxtooyada dalka looga taliyo ee Villa Soomaaliya iyaga oo kaga wada hadlay arrimo ku saabsan iskaashiga labada dawladood ee dhinacyada ammaanka, horumarinta dhaqaalaha, diblomaasiyadda iyo iskaashiga labada dal ee ku qotoma kobcinta dhaqaalaha labada dawladood iyo labada shacab. imaatinka ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed Cali ee caasimadda dalka Soomaaliya ee Muqdisho ayaa qayb ka ah isku soo dhaweynta labada dal ee Soomaaliya iyo Itoobiya oo muddo xurguf diblomaasiyadeed ay u dhaxaysay kadib markii heshiis is-afgarad ah ay labada dal ku kala saxiixdeen caasimadda dalka Turkiga ee Ankara halkaasi oo labada dawladood ay isfaham buuxa ka gaareen dhammaanba dhinacyadii ay hore isku hayeen waxayna sidoo kale qayb ka tahay iskaashiga iyo wada qabsiga dawladaha geeska Afrika ee wadaaga danaha isku midka ah iyadoo oo la tixgelinayo qarannimada madax bannaanida midnimada iyo wadajirka dhammaanba dalalka gobolka isla markaana si isku mid ah isaga kaashanayo ajendayaasha hortiminta u leh qaaradda Afrika. Shucayb Maxamed Cali warbaahinta qaranka Soomaaliyeed madaxtooyada dalka.